maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga kiis dil ah oo eedeysana ka yahay Maambile Cali Faarax oo ku eedeysan inuu dil bareera u geystay marxuum Cabdirasaaq Maxamed Cabdi oo ka mid ahaa darawallada ku shaqeeya gaadiidka dadweynaha ee isaga kala goosha xaafadaha magaalada Kismaayo. Fadhiga maxkamadda ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha maxkamadda labadiisa ku xigeen xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida qareenka difaacayay eedeysanaha baarayaasha kiiska ehelada labada dhinac ee marxuumka iyo eedeysanaha. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland gaashaanle sare Cabdullaahi Maxamuud Ibraahim ayaa furay fadhiga maxkamadda isagoona faahfaahin ka bixiyay kiiska ay maanta maxkamadda u fadhido. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta oo taariikhdu tahay 29 bisha 7 2025 maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland waxay u fariisanaysaa gal dacwadeed ciqaab ah oo eedeysana ka yahay Maambile Cali Faarax 19 jir ah ina luul bile birikaan ku dhashay Kismaayo degan Kismaayo gaar ahaan xaafadda Calanley. nooca dambiga uu galayna uu yahay dil ku eedeysan qodobada afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 24 lala akhriyay qodobka 39 ayna asal u tahay base ay ka duulaan qodobadu aayad laan ma socon karaan ay asal u tahay aayadda quraanka ah ee 45aad ee suuratul Maa'ida taasoo ah inuu galay dil kaas ah una dilay marxuum Cabdirasaaq Maxamed Cabdi 25 jir ah ina Faatuma Cabdiqaadir Hilowle ku dhashay Jilib degan Kismaayo xaafadda shaqaalaha gaar ahaan waaxda Fiaf Madow. waxaa maxkamadda goobjoog ka ah xafiiska xeer ilaalinta oo dacwad soo ogayo xafiis xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle dhexe Ismaaciil Cabdi Cali. sidoo kale waxaa goobjoog ah wakiilu dacwaha maxkamadda horteeda ka difaacaya eedeysanaha Aadan Bahdoon oo isaguna u qareemaya ama difaacaya eedeysanaha. waxaa iyaguna sidoo kale goobjooga ehelada labada dhinac ehelka eedeysanaha iyo ehelka marxuumka. inta ka bacdi waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo eedeysanaha u yeero Maambile soo istaag. Maambile Cali Faarax waxaa lagu eedeeyay inaad dil kas ah u geysatay marxuum Cabdirasaaq Maxamed Cabdi 25 jir ah xaafadda Calanley gaar ahaan dalcadda aaga masaajidka Xamza. wiilkaas oo ahaa wiil yar oo xamaalata ah kuna shaqaysanayay baabuur BL ah. eeda lagu soo eedeeyay ma gashay ma galin dood sharciyan ka qaba waad gashay. ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland gaashaanle dhexe Ismaaciil Cabdi Cali ayaa maxkamadda u faahfaahiyay qodobada xafiiska xeer ilaalinta uu ku soo eedeeyay Maambile Cali Faarax oo ku eedeysan inuu dil u geystay marxuum Cabdirasaaq Maxamed Cabdi oo ka mid ahaa darawallada ku shaqeeya gaadiidka dadweynaha ee isaga kala goosha xaafadaha magaalada Kismaayo. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. mudana gudoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh waxaan maanta ay taariikh u tahay 29 bisha 7 halkan ka soo jeedinayaa kiis gal lambarkiisu yahay eber 561 2025 eedeysana uu ka yahay Maambile Cali Faarax 19 jir ina luul bile birikaane kaasoo ku dhashay magaalada Kismaayo degan Kismaayo xaafadda dalcadda kuna eedeysan kow aayadda 45aad ee suuratul Maa'ida lala akhriyay qodobka 24aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 33aad 39aad faqradiisa D
ama xarafkiisa d kuwaasoo sheegahaya in dil kas ah la geysto dhibana ay ka yihiin ehelada marxuum cabdirasaaq maxamed cabdi 20 jir ahaa ina Faadumo Cabdiqaadir Filowle kaasoo deganaa magaalada Kismaayo mudane gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh sida kamid ah xafiiska xeeraarinta waajibaadkiisa ku xusan qodobka 110aad iyo qodobka 163aad wuxuu sheegayaa in la cadeeyo in uu dhacay faldambiyeed iyo qofka faldambiyeedka geystay mudane gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh eedeysanaha wuxuu si kas ah u dilay ama si baraara u dilay ama si galdarra u dilay marxuumka aan soo sheegnay wuxuuna dilay taariikhdu marka ahayd 24 bishii 24 bishii 2024 wuxuuna dilay xilli duhurkii salaad duhur laga soo baxay waliba wuxuu ku dilay masaajid hortii ama masjidka Xamza hortiisa waxaan la kulmay markii salaada laga soo baxay eedeysanaha asagoo dilhaya halkii buuna ku dilay marxuumka asagoo dilhaya wuxuuna dhacay taariikhdu markii ahayd 24 bishii 2024 mudane gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh eedeysanaha wuxuu ahaa staff ayuu ahaa wuxuuna staff u ahaa mudane kamida mudanayaasha dowlad goboleedka Jubbaland ama dowladda Jubbaland xilligaana kuma uusan jirin wax shaqo ah asaga ayaa iskii ama shaqooyinkiisa gaarka ah ayuu watay wuxuu noo sheegay inuu ka soo tagay shaqadiisa markaas uu la socday xaafadda agtii ama xaafadda eheladiisa sidaasna markuu dhaxla marayay eedeysanaha marxuumka ay kulmeen sidana uu ku dilay sida aan cadeyn doono mudane gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh waxaa cad inuu faldambiyeed dhacay eedeysanuhuna uu yahay kii galay sida ku xusan qodobka 168 iyo 149 xeerka habka qaabta Soomaaliyeed kuwaasoo sheegaya in la qarto faldambiyeedka inuu qofku galay eedeysanuhuna waxaa marxaati hadda maxkamadda u tahay waliba aan jecelahay inay noo qorto in uu hadda markii la soo istaajiyay uu yiri faldambiyeedkaas waan galay dood sharcina kama qabo mana gelin marka waxay ku sii adkaynaysaa qiraanada hore aan ka qornay ilaa horkeenkii ilaa inta aadaan ka diyaarinay uu qirinayay inuu marxuumka asagu nafta dhaafiyay si kas ana uu dhaafiyay mudane gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh taariikhda aan soo jeedin 24 bishii 2024 marxuumku Allahu naxariistay wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo 25 jir ah wuxuuna ka xabaalan jiray magaalada lagu yaqaanay wuxuuna ku xabaalan jiray gaari caasiya ama gaari beela oo wadada laamiga ka shaqeysto oo sidaas ayaa lagu yaqaanay marxuumka asagoo maalinta ayada 24 bishii 2024 meesha marahaya ayaa waxa la soo kulmay oo marka intuu magaalada hoose ka soo qaaday dad uu tagay wax sandhala mar labaad ka soo laabtay ayaa marxuumka waxay ku kulmeen iyo eedeysanaha masaajidka Xamza hortiisa ayay ku kulmeen halkaas oo meel wado oo mashquul ah eedeysanaha iyo marxuumka waxaa dhaxmaray sidii goobjoogayaasha ay noo sheegeen hadal ayaa dhaxmaray markii u horeysay eedeysanaha wuxuu istaagay gaariga daaqadiisa ayuu istaagay dhankii darawalka ayuu istaagay hadal baana dhaxmaray hadalkaas markaa laba maqlin cid maqlisay ma jirto laakiin marxuumku wuxuu eedeysanuhu wuxuu sheegayaa in ay haayeen laba nin oo is yaqaana sidaasna ay isku wareysanayeen isla goobta ay ku kulmeen marxuumku eedeysanaha uu kula kulay marxuumka asaga oo ka dhaqaaqin isla saacadii ayuu marxuumkii meesha nafta ku dhaafiyay eedeysanaha markuu marxuumka la kulmay wuxuu watay qorigii uu ku shaqeynayay mudanaha shaqadiisa uu ku hayay waxayna ahayd sida sharciga markii qoriga shaqada uu ka soo baxo ama dawladda lagu yaqaan ama nidaamka lagu yaqaano in uu meesha uu ka shaqeeyo mudanuhu uu degan yahay ama gurigiisa uu dhigto qorigii ayuu asagoo shaqahaynin oo wadada la socday sidaasuna ku dilay marxuumka wuxuu soo eedeysanahu wuxuu soo istaagay marxuumka gaariga uu wado soo istaagay hadal baana dhaxmaray gacmuhuna ku fiiqay sidii goobjoogayaasha ay noo sheegeen kadibna xabadii ayuu ku dhuftay hal boolaato ama hal xabad ayuu ku dhuftay waxayna kaga dhacday isha midig ayay kaga dhacday isla markii marxuumka Allahu naxariista waxa loola carray isbitaalka weyn sidii naftu isla daqiiqadii oo baxday ma jirin wax sababa
ama wax dhex maray ama wax xooloo ka dhexeeyey ama wax dhibaato uu geystay marxuumka wuxuu u dilay sidii hadda uu sheegayay si kas ah ama si galdarro ah ayuu u dilay mudane guddoomiyey garsoore maxkamadda sharafta leh sidaa daraaddeed waxaan kusoo eedeynay aayadda sheegayso inuu qof dilo ee 45 ee suuratulmaayida iyo qodobka 434 lala aqriyey qodobka 39aad xarafkiisa d oo sheegayo ay in ciqaabta ay ku sii adkaanayso qofku markuu dambiga uu geysto ama falka uu geysto si galdarro ah ama si arxan darro ah mudane guddoomiyey garsoore maxkamadda sharafta leh eedeysanaha wuxuu marxuumka u dilay si arxan darro ah nin shaqaysanayo oo xitaa wax hadala ama murana uusan soo dhex marin ayuu asagoo shaqadiisa ku jiro gaarigiisa uu ku shaqaynaya steerinkiisa hayo ayuu ku dilay steerinki uu ku dildilay wuxuuna kaga dhuftay meel aan dadka xitaa hadildilay aan lagaga dhufanin ishi xataa wejiga kagama dhufanin ishi ayuu kaga dhuftay xabadda wuxuuna ugu dhuftay si kasa gacantiisaana gaadhay si oo gacantiisa xitaa kolay dharbaaxu ku dhufan karay wax kastuu qoriga daabkiisa ku dhufan karay si naxariis darro u dilay ishi ayuuna kaga dhuftay taasoo murug usii keenayso eheladii marxuumka markay ogaadaan ama ay arkeen wiilkoodii oo isha xabad lagaga dhuftay mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh sidaas ayaan qodobada ugu soo eedeynay eedeysanuhuna wuxuu qiraal u yahay inuu fildambeedku sidaas u dhacay maalintii 24 bisha laftan u dhacay masaajidka xamsana ku hordilay ayna ahayd xilli xurmo leh oo salaadii duhur laga soo baxay waxay ahayd inuu qoriga intuu meel dhigo salaada uu masaajidka ama qoriga uu la galo uu tukado balse ma uusan samaynin dadkii shaqaysanayay ama xabaanlayay ayuu masaajidka ku horlaayay marka waxaan caddayn doonaa markii aan gaarno qodobada caddaymaha qodobka 114 eedeysanaha markhaatiyaalkii meesha joogay markuu marxuumka dilahayay iyo caddaymaha ku xeeran oo dhan ayaan sheegi doonaa hadda waxaan caddaynay inuu eedeysanaha marxuumka dilay si kasana uu dilay asagana uu qiranayo oo uu leeyahay aniga ayaa marxuumka dilay saacadaas iyo maalintaas dhanka kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland gaashaanle sare Cabdullaahi Maxamuud Ibraahim ayaa eedeysanaha weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo qodobada xafiiska xeer ilaalinta uu ku soo oogay oo ah in uu dilka u dhacay si ku talagal ah balse eedeysanaha ayaa sheegay in dilkani uu yahay mid kama ah maamule maxaa kalifay inaad disho marxuumka see wax u dhaleen saaxiibkayga waxaa kamayagala waxaan kaa rabnaa horta inuu saaxiibka ahay in kale waa hawl kale waxaan u baahan tahay see wax u dhaceen barshada xageed ka timid maxaad qabanaysay xageed u socotay see xabadda ugu dhacday maxaana dhex maray faahfaahin أنا حافظ أتيجي مسؤولي. ممكن نبري وتري ترى واعين. أنا فريق عبد الله وجدت الموين حافظ أتيجي مسؤولي سنة وسيسولي. أنا حافظ أتيجي مسؤولي مكاس عندي ما شاء الله أستر شغل جدا يقول عايز أريد أقول عن ساعة. إن شاء الله بريء لا تقدر معنا. أنا حافظ أتيجي مسؤولي جاي أنا بس جاري أنا مشتغل فريق عبد الموين يمكن سنة واحد. هيا ساك عرفت اللي كوري حفظه بعد البداية واضح كوري حفظه أنت لو جليا أمانك على الملكي سوج العسنا قريب شاطر على يفرق قريب مثلا إن الله ما سان أداه كبر يلعب ما بدي أحكي دينك كوري بالسوق لو عم حاطط القناة أنت ترى على قناة سكوري نودا سكوري دول إنه أوكي كوري ممكن سوق نوع روبا هيا أصل حرط الوط وما جست ورو أمام بولية قريب أنا كيسة العسنا قريب حفظنا أنا كموجين هاي صار ما نقول أنا بتر حفظ حاجة ولا على مرام الحمد لله ما حسيت أولا أو باور كمان العبي تاني بس إنها بيت لا نعم حال ستيري ما يمنع dhinaca kale وريان ما لا قوة ما نسقف كلا قوة قريب أنا بتر intaasi kadib qareenka difaacaya eedeysanaha aadan bahdoon ibraahim ayaa dhankiisa maxkamadda ka sheegay qodobada uu ku difaacayo eedeysanaha waxa uuna ka dhawaajiyey in kiiska dilka uu yahay mid kama ah aana ku talagal ahayn sidaa darteed ayuu maxkamadda ka codsaday inay laasho qodobada xafiiska xeer ilaalinta uu ku soo oogay eedeysane maambile cali faarax
سوى تنقوط ماذا ذكر رابطة مالية أنا رأى أن يدبر ada orang itu apa maksud dari apa? Kita ingkas dulu waktu apa? Kau ini hasil spesial. Ini dia baru. Ini awal berapa? Biasa. Lihat dulu. Jalan ingkas. Ini tasuk. Mesin. Bueno, saatnya ya. Biasa mesin, waktu mana? Mesin kan ada, mengambil bahan. Alam mesin. Sekarang ini, contoh ini berkasar. Nak ukal kata mengambil aku adalah kasihnya waktu dulu, ada yang ada musaharah. Saya hari ini dulu ya, dulu jual kuhari, sekarang kalau ada saya makas, mungkin saya beri itu saya hari ini harus saya. Jadi Madama ambil orang kaya, jangan orang koi, saya tunjuk dalam tuh apa? Saya tunjuk pakai. Saya usaha yang ada macam ini, saya cuma ini. Nih, elah saya, boleh dulu, sulit dasi, besar mana? Mana? Waktu itu tangga apa? Ini sulit tak, lebih. خدمة عالية ما دام عن مر يتجاهل يتكلم في سنة يجري ما دام عن عيال فوق من عدين وحمك مر يحاول وسيكون ما دام يسوع نبدأ أو مثل ذلك على الأخير سحرا مدام وقفوا فرق العين وصبح سنة عدنا سا نعم وصل إليك قوة صدرا سرعة ضيعة أترك ضيعة أكثر كيف معنا كيف نحن عقود له ولا البولا تميت كذا أنا متى أول يستوي سرعة من كفن كيسان ما مقصود به من كفن سعدي عمل له ذكوا بلاد واني يبل كله لوكرا يحدث هو لامكرا mereka tergerak tak bermaksud يبغى تلبسه كيف تقول عايم عامة mereka ibadah ada udah doa mikir isi sudah jalan memang terjadi di sana mereka ibadah mencoba itu. ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland gaashaanle sare Cabdullaahi Maxamuud Ibraahim ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda isagoona xusay in maxkamadda ay dib ka soo sheegi doonto fadhiga xiga ee maxkamadda. Marka koobaad oo aan ku dhageysanaynay eeda iyo difaaca Maambile Cali Faarax oo ku adeeysnaa inuu dil u geystay Cabdirasaaq Maxamed Cabdi intaas ay maanta inoogu eg tahay maxkamadda ayaa gadaal ka soo sheegi doonta fadhiga labaad insha Allah.